ما بلا بسم الله الرحمن الرحيم أنك وكل شغلين ما كجرنا أو نبض قبنا حدود علاج جيجا أو دحدين لبجرو جرين ما أنت مركان توصل أرورتم ما كلاكيا نوقف سدي أو زو وتو واحد وتو قري وتو إنفنتري ورالدي واحد لنا أي لقب سدينه دقاكي الميل جوجا باج جيجا ميل كستا قب سدين سبب من قرنين ودبات تجرين هيك من قصة صراحة أنك وجوهنا واحد كل سبب كانوا ضايع قرنين وأنا لقب سدين عاد ما ضحتوين كنفتو والو ويراري والو حريري مدحين ميل السوينيا مقرنين تاسع كل إنان كل محقرها أن قد بيان دوني شعب كينا وقعدوا بس شعب كينا وقعدان ساعات بان كل واحد نسوقن لي بقرني تاسع قاعدين سوجي ديني يعني waxaan ku sugannahay xaalad adag oo loo baahan yahay shacabka iyagu inuu maanta dadnimadiisa cadeeyo Itoobiya maanta waa qowmiyado inay qowmiyadi caawayna qabsato iyadoo awalba tulli soo maraysay waa ayaan daro iyo dhimasho ummadda Soomaalida ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan Jigjiga waxaan leeyahay xoogga militariga soo galay xoog inaga saara istifaac baan u baahanahay ka kacaan idin leeyahay ka kaca بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku sugannahay magaalada Jigjiga gaar ahaan xarunta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya annaga oo nabad qabna oo seexanay ayaa saaka waxaan ku waabarisanay ciidamo aad u tiro badan oo gaashaaman oo lagu soo shubay magaalada Jigjiga guud ahaan xarumaha dawladda madaxtooyada xarunta xisbiga iyo dhammaan goobaha mataqaanaa shacabka ay ka adeegtaan intaba waxa dhibaatooyin iyo hagadaamooyin aad u fara badan ay ku hayaan waa shacabka madaxweynihii iyo mas'uuliyiintii ugu sarreysay deegaanka hadda xaalad ay ku sugan yihiin ma garanayno waxa weeyaan madaxtooyadii waxaa isku weeray ciidan aad u tiro badan xaaladda in ay dileen inay mataqaanaa afduubeen iyo waxay hadda xilliga madaxweynihii ku sugan yihiin ma ogin taasina waxa ay mataqaanaa jebinaysaa nidaamkii federaalismka constitutionkii waddanka u yaallay shuruucdii dalka u taallay waxaana samaynaya waa dowladda federaalka ugu horreeya ra-iisul wasaaraha waddanku marka waxaan leenahay dadka shacabka ee Soomaalida Itoobiya waa qoomiyado waxaan nahay qoomiyada Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ha loo istaago midnimadeena ha loo istaago mataqaanaa isku duubnideena ha loo istaago sidii loo difaacan lahaa waddankeena iyo sharafteena iyo karaamadeenna cid kastoo inagu soo cadgudbaysana maanta waxaan haysanaa chance in laynoo adoonsado maaha sidii awal laynoo adoonsanayay in laynoo dhibaateeyo sidii awal laynoo dhibaateynayay ma aha haddaan qadiyadeena iyo sharafteena maanta difaaci weynana inaan dayuusiin doofaaro aan noqonayno ayaa la kacad marka waxaan u baaqayaa dhammaan dadka Soomaalida ee dibadda daafiyada joogana in arrintan la socdaan in laga dhiidiyo in cid kasta mataqaanaa dareenka wadaniga ay muujiso isla markaas si degdeg ah hawsha wax looga qabto wabillahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya xarunta xisbiga saaka deegaanka Soomaalida Itoobiya aroortii waxaan ku waabarisanay iyadoo kaare iyo beebe iyo ciidan xoog badan ku wareegsan yahay ciidanka wax loogu wareejiyay wax loo keenana ma garanayno kor baana laga qabsaday dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dawlad deegaan buu ahaa Soomaalida Itoobiya dalka Itoobiyana wuxuu ku dhisnaa federalismka dalka Itoobiya uu ku dhisnaa qoomiyad dalka Itoobiya kamid ayaanu nahay federaalkuna wuu noo dhaxeeyay marka maadaama dastuurka dalka Itoobiya ay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku dhisnay dastuurka Itoobiya waa la jabiyay in la jabiyayna waanu arkaynay anagu waayeen oo dhan laakiin waxaanu isleeyahay ninkoo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dastuurka ininku aad asaxiseen ha u hor jabinina qoomiyad baan lagu soo duushay ra'iisul wasaarihii dalka Abiy qoomiyad buu noqday lama nagu soo duulay meel walba ciidankii Oromo iyo ciidankii federaalka ayaa dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta haysta madaxweynihiina meel ku sugan yahay war uma hayno shacabkiina meel walba wuu kacay shacabku waa la leynayaa marka Soomaaliya ay dunida daafaheeda meel kasta joogtaan maanta waxay maraysaa qadiyad maanta haday inagoo Soomaali ah ay Oromo ina qabsato wax qadiyada iyo wax sharaf oo inoo haray ma jiro madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta meel ku sugan yahay cid war u haysa ma jirto waxa laga fiyahay
shidaalkii inoo soo baxay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay horumarka aynu gaadhnay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay dadkeena waxbartay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay qaabkaan isku maamulayna laga xun yahay nin kasta oo Soomaali ah oo wax qabayo waxaad qabtay dib intaad u dhigato waa inaad maanta dhiigku ku kaco oo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wada artan la qabsaday milyan xataa ku haysto waa inaad milyan xar aad ku hadashaan oo in la qabsaday ogaataan wixii inta ka dambeeyana saacad daqiiqad wixii soo kordhayaan la socodsiinayna aad bay u mahadsan yihiin saaxiibaday sida ay sheegeen waxa weeye saaka oo ah maalin sabtiya waxa weeye dadkan waxaan ku suganahay xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxaanu halkan ku fadhinaa mas'uuliyiintii deegaanka gorihii dhexe ee Soomaalida dhammaan goobihii muhiimka ahaa ciidamada waxa weeye mataqaanaa dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya deegaanka min mooyaane ilaa iyo dawalle xuduudda waxa weeye mataqaanaa ku hareeraysan sugayaygu ahaa waxa weeye mataqaanaa annagu isma aanaan lahayn cadow dalka ayaa tihiin waxa weeye erayo fara badan oo waxa weeye mataqaanaa kicinaya shacabkanaga oo second citizen laga dhigayo ayaa waayaha ra'iisul wasaaraha dalka afkiisa uu ka sheegay waxaa ka mid ahaa waxa weeye hadal uu sheegayo oo uu soo galiyay eray ah Soomaaliya Itoobiya which means Soomaalida iyo Itoobiya waxa weeye mataqaanaa annagu ah dowladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya waxa weeye mataqaanaa waxa maaragtay waxa weeye mataqaanaa kale oo waxa weeye mataqaanaa uu ka hadlay toddobaadkan gudihiisa arrimo ku saabsan natural resource-ga deegaanka shidaalka oo uu yiri 5 daqiiq waxa weeye 5% ayay ku yeelanayaan dadka laga helay which is wrong taas ayay shacabkanaga ka kaceen taas ayaa social media ku jirtay toddobaadkan isagoo taa maxaan ku raday waxa weeye mataqaanaa sabab ka dhiganaya ayuu waxa weeye saaka waxa weeye mataqaanaa 80% looga hadlayaa iyo shacabkii ku leynaya xabaday hadda ridayaan baa leeyahay inay dad dhinteen inay waxa weeye dhaawacmeen waan idin soo sheegi doonaa laakiin annagu sharcigii baan wali taaganahay higgi mingistigii baan taaganahay waxa weeye hal talaabo oo sharciga jibinaysana inaanu ku dhaqaaqno waxaa naga hor istaagay madaxweynaha nagi iyo mas'uuliyiinta nagi waxa weeye marka ilaa hadda sharcigan ilaalinayna waxaanu sheegaynaa qoomiyadda waddanka qabsatay inay waxa weeye sharciga ilaaliso waxa weeye dal wakiil kama noqon karaan waxa weeye si qoomiyadeed bay noola dagaalamayaan intayna waddanka qabsanin iyaga waanu islaynay waanu isku dhacnay waxaan islahayn laakiin markay waddanka qabsadaan waxa weeye dhibaatadii jirtay way xalinayaan dagaal ciidan ayaa ku socday qoomiyadda Soomaalida 5 bilood ee ugu dambeysay kumanaan ayaa mooyaane ku dhimatay kumanaan ayaa tulli ku dhimatay kumanaan ayaa baabili ku dhimatay ilaa hadda shacabkanaga anaga waxay nagu dhaliinayeen ciidan baa dagaalamaya maxaad u dagaalami laadihiin ciidan baa dagaalamaya maxaad u dagaalami laadihiin waxa weeye ilaa hadda madaxweynaha nagi baa naga hortaagnaa haddana waxaan ka codsanaynaa waxa weeye mataqaanaa in la fasaxo waxa weeye mataqaanaa ciidanka deegaanka iyo shacabka deegaanka oo waxa weeye la iska celiyo cadowga qabiilka ee nagu soo duulay waxaan rabnaa maanta laga bilaabo inaan u helino shacabkanaga la gumaadayay waxa weeye uma dulqaadan karna cadow shisheeyaan iska ilaalinaynay cadow qabiil baa maxaa kula nagu soo duulay dhammaan ciidanka maanta jigjiga la wareegayna waa oromo waa qoomiyad ma aha ciidankii federaalka waxa weeye ciidankii federaalka ee qumanaa arrintaa way ka soo hor istaageen saan xogta ku hayno waa ciidan qoomiyadeed weeye marka waxa weeye shacabka waxaan leenahay dee difaacda waddankiina difaacda horumarka difaacda maamulkiina taageera waxa weeye kuwa waxa weeye Soomaali isku sheega ee waxa weeye mataqaanaa dadka waxa sameynaya la soo safarayana war shay oo yuuban leenahay isku xishooda isqanjiliga dhiig iska baara waxa weeye hawsha halka way ka weyn tahay saaka halka way ka weyn tahay maxaan ku leeyahay deegaankiina difaacda heego deegaankeeda ha difaacato intaas ku soo dhoweey ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya meel kasta joogo dal iyo dibadda saaka waxaan ku soo nahay xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxaan u dhannahay dhammaan mas'uuliyiinta deegaanka oo maxaan ku ugu horeeyaa afayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Maxamed Rashiid Isaaq iyo madaxda xarunta dhexe iyo dhammaan kabaniga waxaan halkan ka cadeynaynaa maanta saaka aroortii inuu deegaanka Soomaalida ku waabaristay ciidan mataqaana wata amarka ra'iisul wasaaraha kaasoo maxaan ku dhahay uu saldhigiisu yahay inuu qabsado deegaanka Soomaalida Itoobiya sidii awalba ay ku taamayeen himiladoodu ahayd
in mataqaanaa keliya waddanka Ethiopia uu noqdo Oromo dhawaanto waxaan xasuusanaa dagaal adag oo mataqaanaa labada shacab dhexdooda ka dhacay oo ay xaggooda iyagu ciidanka iyo Oromadu waday in mataqaanaa dhibaatadii ka dhacday inay fanj wadaan waxaan wadnaa madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar sababta lagu haysto ee loo raadinayo inay tahay dhulkiisa uu difaacay shacabkiisa uu difaacay ee uu horumariyay iyo dastuurka dalka uu ilaaliyay inay tahay waan ognahay waxaan u sheegaynaa cid walba ay khusayso inaanaan ahayn dad la muquunin karo nalama muquunin karo keliya dastuur baa lagu wada joogi karaa maxaan ku rahay hal mar hal daqiiqo inta aanu nool nahay dadkooda dalkooda iyo maxaan ku rahay diintooda waxaana lagu qasbayaa inaan oromowno waxaana lagu qasbayaa abaagadeeygu inuu noo taliyo waxaana lagu qasbayaa in mataqaanaa shacab resourciganaga iyo deegaankanaga iyo dhulkanaga wada qaato taana dhimashaan ka xignaa maantaan ka xignaa barri baan ka xignaa cidda aaminsan inayna maquunin karto maxaan ku rahay abi waxaan leeyahay abiow adigiyo lama iyo maxaan ku rahay qeero iyo orag qeero inay yihiin inay orag yihiin oragtii xuduudda ka soo gashay inay yihiin inay jawhar ka amar qaadanayaan baan ognahay shacabkiiyo dhallinyarta waxaan u sheegaynaa iska celiya meeshaad ku oragtaan bar dhagax tuura xabadkii haysa xabad iskaga celiya iska celiyaan idin leenahay madaxweynihii meelu ku sugan yahay ma ogin xaruntii maxaan ku rahay madaxtooyada waa la qabsaday dowlad deegaanka waa la qabsaday laakiin taasi ooma suurtoobayso meeshu jooga waa soo qabanaynaa cidda haysatana maxaan ku rahay xabad baan madaxa kala dhaxaynaa wey بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku sugannahay xarunta xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya Ethiopia waxa weeyaan waxaan ku sugannahay ku fadhinaa muxuu ahaayay hogaamintii deegaanka intii badnayd waxa weeyaan saaka markuu waagu bariyay 12 subaxnimo waxay shacabka anagu iyo ardaydii iyo shaqooyinka caadiga waxa la wato lagu waabaristay ciidamo federaala oo waliba aan xaqiijinay inay Oromo kaliya yihiin oo ciidamada nadiif tahay Ethiopia aysan ahayn ayagoo oo dantay ka duuliyaan ay tahay nidaamka anaga inay burburiyaan in ay Soomaalida Oromo ay u bedelaan haddii ay Oromo u bedelaanna ay macnaha doonayaan inay khayraadka anaga iyo dalka anaga iyo dahabka anaga iyo shiraalka anaga inay qaataan taa marka waxaan leenahay cid walbana u sheegaynaa ma suurtagelayso mana yeelayno dhibaatooyinka ugu waaweyn saakan waxaa ka mid ah in dhammaan xarumihii dowladda iyo muxuu ahaayay hoolashii iyo madaxtooyadii zoo iyo ciidan lagu wareejiyay isla markaana ilaa hadda alaankan madaxtooyadii iyo madaxweynihii meel ay ku sugan yihiin aan la garanaynin waa arrin la yaab leh federaalkana waana uu noo dhexeeyey dastuurkana waana aaminsanay laakiin waxay rabaan dastuurka inaan jabinno inaan ka dhaqaajinno oon annaga go-aanka annaga qaadano ayay doonayaan waxaana reebayna nagu qasbayaan cid walbana waxaan u sheegaynaa bulshadeenada iyo shacabkaanaga hadday dal tahay hadday dibad tahay inay iska celiyaan mana yeelayno oromana ma noqonayno nidaamkana ma qaadanayno ciddii wax ka basan nidaamka la timaadana madaxa ka jalayna walayaal aad u mahadsantihiin bismillah waxaan ku sugannahay xarunta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia say hore saaxiibada ugu shanqariyeen waxaa ka dhacday saakii lagu waabiristay ciidan dabaabado wata qoryo wata sugug wata oo ka soo galay meel ay ka socdaan meel ay socdaan la garanayna laakiin saan leenahay waxa soo diray waxa way abi amarka soo bixiyay laba magarsa amarka soo bixiyay jawhar amarka soo bixiyay onaga dhow wadanka qabsatay saaka xaadirkan jijiyo waxa wadanka qabsaday onaga haysta gacanta ku haysta waxaan leenahay shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Ethiopia in shacabweynaha Soomaaliyeed waxaan leenahay hal iska celiyo oranka hal iska celiyo oramaha hal iska celiyo ciidanku waa oramaha wadata oramaha mas'uul wadanka qabata waxaan ugu qasbaa oramanimada ugu qasbaa afka orama ku hadla way oramaha intalisa abaagadaha intaliyo lama hayn maamulo yaa lagu qasbaya ma yeelayno ilaa qaf nafta ay laga baxayso kan ugu dambeeya nafta ka baxayo ma yeelayno waa tuug dhalay hal iska celiyo oo meel walba laga hawlgala oo hal dhagax tuuro oo naftiina u huro oo wadankiina wadannimada عدة دقائق ويدا وديوسوا وصوماليا وساك ديجيدا دقائق ويدا واسكعلي ويدا ومال اسكسار ويدا وديوس هل اسكعلي ولا مرة هل اسكعلي وحوي اسكتوبنا وحوي والبا يكون ماضيان فرانا هني من مدينا وحوي من مدينة صوماليا لقى شقية ودن مدينة لقى شقية ديجينا وحوي هالوهرو نفي مال هالوهرو هل اسكعلي ولا مرة ما الله ما يسكوارك كان هل اسكعلي مال ساعات هل اسكسار waxaan leenahay wax wadanka wada weeraraya waa onaga weeraraysa oragana qabsatay oramaana qabsatay abaagadana qabsaday ma yeelayno nafta waxa way ugu reeyna aad iyo aad ma sandeed dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Ethiopia saaka arooti
waxaan ku waabarisanay in afgamin lagu qabsado kilkanay si cad baa afgamin lagu qabsaday constitutionka wax ka baxsan mana lagu sameeyey sabab male xukuumadana iyo xisbigan iyagoo ogeyn baa afgamin lagu qabsaday madaxweynahanagi xeradiisii baa la weeraray ilaa haddana wuxuu ku suganaa warkayna Ethiopia federalism bay ahayd laakiin si cad baa naga loo qabsaday si cad sharciga lagu tuntay abiy baa ku tuntay lama ku tuntay si cad baa loo qabsaday oo ka madax banaan constitutionka Ethiopia lagu hayay ka madax banaan waxaa la qabsaday waxaana soo weeraray oo cad dagaalkiina dhex maray Oromia ee dadkana lagu leenayo ilaa hadda maanta khayraadkan lahayn la rabay in la qaato shacabkana iyo maalin kasta la leeyahay waxaana loogu daray maanta in dhammaan awoodii xukuumadda la qabsado waa wax cad weeyaan maanta jijigan dhammaan meel kasta taagtay oral baa taagan meel kasta taagtan oonaag baa wadata xaruntii madaxtooyada la weeraray wuxuu madaxweynaha ku sugay warka maayno shacabka deegaanka waxaa leeyahay waxaa weeyaan in badan baan aamusnayn oonu islahayn dowladdan hadday mar timid isbeddelkan la jaan qaada waxyaabaha mataqaanaa khilaafkeeda dhex maray idinkii Oromia hala xaliyo laakiin in madaxweynahanagii la diilo loo hanjabo waa lagu dilo la dhaho mar kasta isla markaana maanta la soo weeraro yay noqotay waxaan leeyahay iska halgama la dagaalama marna hoos fadhiisan mayno Oromo wallana hoos fadhiisanin shacabkana waxaan leeyahay meel kastoo joogtaan badhiidhiya ka halgama oo mataqaanaa iska saara mana ogolanayno in la baabiyo constitutionkan sharci baan leenahay xaq baan leenahay deegaan baan nahay dowlad baan nahay baarlamaan baan leenahay xukuumad jirtaan nahay sharcin annagana faragelin karana ma jiro constitution faragelin mataqaanaa wax awood lagu faragelin karana ma jirto madaxweynahanagi laakiin maanta iyo xukuumaddanadiiba in afgambi cad lagu sameeyo baa cad saas darteed shacabkeena waxaan leeyahay mar kasta in ay dagaal ay la galaan oo ay iska celiyaan cid kasta oo duulimaad ku aasaasankooda cid kasta qeero arisabna Minnesota markuu joogo wuxuu ku hadlayay walaalkay arisabna dhexda ku hadlayay walaalkay mar kastana wuxuu ku hamiyey inuu deegaanka Soomaalida oo nabad maanta ahaana deegaanka ugu nabad badan deegaanada Ethiopia oo ayna wax dhibi ka jirin caasimadeeda iyo deegaanadeeda oo nabada horumarkii oo saxawda oo socda nabadii oo saxawda oo socota shaqaalihii xafiisyada dowladda saxawda socda maanta in lagu waabaristo xerad kasta oo ciidan xafiis kasta in loo dhigo gaari xeradii mataqaanaa waxyaalaha loo dhigo anagii mas-uuliyiinta hadda laftigeeda hadda meel aan mataqaanaa aanu meel isku soo hordhay weeyaan xaaladdanada saas darteed shacabkanaga waxaan leeyahay in badan baadna aamusneed oo lahayd maxay u aamusan yihiin oodna daliilayseen ood lahayd nimankan dagaalkana lagu hayay cad ee dadkan la leenayo maxaad u aamusantihin laakiin annagiiba maanta lagu daray annagiiba lagu daray oona la soo weeraray oo aan lagu haystaa on maxaad wax mataqaanaa marka taas in shacabkanagu uu ka halgamo yaa soo jeeda waad maasantihin بسم الله الرحمن الرحيم ساكن مركو واو بريسيبا أورما iyo onag oo iswaata tijiga soo galay adiyana soo diray constitutionka iyo sharciga iyo dastuurka leeyahay ee dalku ahaan uu burburiyay si la aadayna waan iska celinayna kana gaban mayno qof yar iyo qof weyn iyo dumar rag iyo haweenba dhammaan shacabka deegaanka Soomaaliya Itoobiya rag mucaarad iyo maxaasidba saaka waa inaynu Oromo iska celinaa aan ka saarno qoomiyad lamidana nahay dalku waa dalkeeni waa deegaankeeni ilaa awaash baynu nahay انت درتك سيادة رادل أورما يسمعنا والد سيقناه ما أنتم على رسالة جديدة وأنا قبصنا وأنا قبصنا كرنا ورالله أيام كنا يسوينا وأنا كسرنا لأن يرانا هذا بيع كسرته بيع حال إنسان كسرنا وأنا كنت فعلنا أورما أنا مدونينه نما أنا قبصنا كرتو لغتنا أنا مخصص بكرتو شتاء كنا مقالنا كرتو خيرات كنا مقالنا كرتو أنا قاعد أنور أنا قاعد أشوفنا أنا قاعد أدواننا سيادة لما شعب حصلت شو يكون دموع كتو يكون طول شو لما تنبع يا لما عالم قدام الدنيا وعن كعب سنة إن ستوس أصدر لما إلا إذا ما الصومالي إثيوبيا أنا أول الصومالي وأنا هيدي هذه الصومالي الرعين أو ولا لنا ما نديدني أيها من الدفاع ترشاي ما أنت من الدفاع إذا كان فيلم إلا مويا يا إلا محمد وجه أنت ولا حيسة يا إلا يو بوق يقلادي إلا هنا أو شيء إن أرمنا صورتي أبي وأرمو لمو وأرمو إيمان كذا أرمو هايستا وكمان قاعدة تتريق أول توجه يوم حقول أقوم بدي كله أرمو هو عالم في فدرة